ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتكم على جنبكم عمر كيو يوتيوب هبين ونكسن ولكن عمر كيو إن شاء الله هدو إلى إكرالي نقض عاوحان رجينا يعني إذن سو قد بيو برنامج أما موضوع كسابسن محالة حاسو مالذو كل يواد أكتهين مالول بوجع عصبي كينان مالول بنا وحاد أركيسا خوف معركتي wax wiligaadana milaysanayna mas aadan wiligaaga xataa aad ka xishoon jirtay masaad maqalkiisa xataa kugu adka ayo maalin ka dambe ma aragtay si fudud ku arkaysaa misna aad ku maqlaysaa sida social media loo sameeyay waxa adduunka dhan faroo ka baxay khaasatan hadda anaga nahay dadka Soomaaliyeed ee social media waxaan ka fahanay fikrad aad iyo aad u khaldan taasina waa laga fiican yahay haduu ilaahay kala noqdo khayrtu waxay channelka Umar Kee YouTube bil fadlan waxaan ka codsanaa videogan haduu ku soo gaaro inaad share gareyso Soomaaliya meel bay daafac caalamka joogto inaad la wadaagto insha Allah anigana waxaan rajaynayaa barnaamij walba xiiso badan ama barnaamij walba markaas nafsadeeda ahaanteeda ku cusub inaad idin soo gudbiyo dikan waxaan ka rajaynayaa wixii ku cusub inaad ila soo xiriirtaan haduu ilaahay kala noqdo insha Allah mawduucana wuxuu ku saabsan yahay waxay tahay nin oo Soomaaliyeed oo haddana ma aragtay markaas sheeganayo inuu yahay nin ma aragtay ama rag aan ahayn oo sida haweenka camal u dhaqmay misna sameystay astaamaha lagu garanayo haweenka saa taqaaniinba oo nin rag ah xataa dareemaysid cod ahaantiisa dareemaysid wajigiisa dareemaysid qaab ahaantiisa dareemaysid ayaan jeclaynaa caawa ka hadlo ilaahay karaan noqdo horta kulay waad ogtiin waxa waay ma aragtay adduunku waa isbedelay maalin ka dambe waad arkaysid dhibaatada way sii badanaysaa xumaanta way sii badanaysaa musiibooyinku way sii badanaan haddana ayadoo saas tahay waxaad arkaysaa qof shalay islaamnimo ku dhashay mase islaam farciisaba ahaan jiray haddana inuu wax xun ku dhaqmayaad arkaysaa hadduu ilaahay kala noqdo marka waa laga fiican yahay maxaa la dhahaa qof maanta muslim ahaa inuu ma aragtay sheegto inuu yahay nin aan ragba ahayn haddana waxaaba jira waxay tahayba inuu markaas la tumanayo rag asiga markaa asaagiisa ah mideeda kan wuxuu samaystay jirka haweenka kale samaystay oo naasuu samaystay oo waxyaabo badan uu samaystay marka waa arin aad iyo aad horta oo mucjiso u ah adduunkana waxa waqtigiisa asigaaba sii yaraanaya waqtigiisa maalin ka dambe maxaa la uu sii nusqaamaya haddana musiibooyinkii falxumooyinkii way sii badanayaan marka ninkaagana adigan kula hadlaya marka ugu horeyso horta waxa mar walba muhiim ama fiicana waxay tahay inaad adiga aad qirnaato inaad tahay qof muslim ah haddii xataa even aad iska wayso awoodda raganimada aad iska wayso ilaahaygi shalay ku abuurto unbaa kuu soo celin karo maana inaad astaanta haweenka kale inaad samaysato jirkaaga sida naagahaad kala ka dhigato kaleeto oo waxyaabo badan raganimadaada waxyaabo badan aad ka badasho horta aad lagu fiican yahay haddana wixii waaba ka tagtay oo problem waxaad keentay inaad rag la tumato ajnabi ah oo cadaan ah inaad la sii tumantaad keentay waxaad diyaar u tahay qoomuluudka la sheegayo cad oo balan taaganaad tahay waa mid musiibo xataa markaas adiga kale kugu saabnaanayso oo kugu koobnaanayso ma waa mid dadka adduunka oo dhan ku koobnaanayso ama markaas ma aragtay dhibaato u keeni karto sababtoo ah waxa mar walba muhiim ah waxay tahay adiga nafsad ahaantaada maanta ilaahay kuuma dhigin inaad sida haweenka kale u dhaqanto haweenka ayaa rag loo sameeyay rag looma sameeynin raggana waxa loo sameeyay waa haween adigoo rag hadaad rag kale isku dhiibto waa xawaay musiibo aad iyo aad weyn ay leedahay waadna la socotiin Soomaaliyeed meel walba joogtiin qowmuluud dhibaatada badan ee soo marto diinteena noogu sheegtay ama rasuulkeena noogu sheegay oo diinteena mar badan ka hadashay qowmuluud dhibaatada badan ay sameeyeen jireen waxay ahaayeen inay ragga markaas ma aragtay mar walba damacaan ama inay rag iskugu tagaan ayagoo meesha habeen buuxaan oo habeen magaalada laga leeyeen oo magaalada cindiga ay ka tahay ayaa hadan rag isku isticmaalayeen dhibaatadu ilaahay u keenay waad wada ogtiin cid maanta loo sheegay hab yaraatee ma lahan marka adigoo maanta nin rag ah inaad ma aragtay nin rag kale la tumato aad lagu fiican yahay ama jirkaaga ma aragtay sida haweenka kale aad u samaysato oo haddana maalin walbo saacadaan aad leef soo gasho oo ka sheekayso macnaha astaanta ama raganimada ama macnaha asxaabkaad adigu dhaqmaysid mise waxyaabaha aad sameynaysid mise waxyaabaha adigu lagu sameeynaa nafsad ahaantaada bal hadda bal videoga ninkaan la arkaa waxyaabaha qaar oo sameynayo wax loo dulqaadan karo ma aha run ahaantii waxa fiican markaad qofka ma aragtay ama waxyaabo qaab ama waxyaabo macquul ah u sheegaysid ama wax markaas ma aragtay qofka nafsadiisa wax ka bedelayo waxa mar walba muhiim ah waxay tahay in oo qofka isbedel keeno bal hadda videogan bal ila daawo bal ninkaan wuxuu sheegay bal ila arkaa markale ogeysiis dhammaan waxaa la ogeysiinayaa inta ku nool walaalayaal waad u jeedin ninka hadda video ahaanta wuxuu ka hadlaya bilaa calayk horta waxaa mar walba fiicana waxay tahay adigoo maanta ilaahay boqolow ka dhigay inaad dib u soo noqoto sida astaamaha haweenka camal aad u dhaqato bilaa calayk sababtoo ah waa laga fiican yahay waa dhibaato aad iyo aad weyn adiga haddaad mucjiso ama musiibo aad isku rabto mid adiga markaa kugu kooban oo ilaahay kugu canaanay ma aragti samee laakiin aniga mid najaaifeenis mas dhibaato badan oo keenaysa anigu keenin sababtoo adduunka kaliya kuma noolid boqolaal muslimiin aan ku nool dhibaato ku dhici karto sababtoo maanta markaan kugu fiirsano waxyaabo foosh xun aad sameynaysid anagana markhaati aan ka nahay
waxaa mar walbana musiibo meel walba ay ka dhacdana hadduu yahay qofka muumin khaalis hadduu yahay iyo kan kirishtaanka hadduu yahaybo isku si u saameynaysaa adiga dhibaatada saameynaysaa waxay tahay mid aniga dhanna saameynayso haddana afkiyaad ku hadlaysaa haddana waxaad sheegaysaa waxyaabo markaas aan nafsad ahaan loo dul qaadan karin wallahi bilah waa dhibaato aad iyo aad weyn sababtoo ah waxa way soomaalida ma aqaan biryahan dambe wixii ka khaldamaya mise ma arti qaabkii waxyaabaha ay u jiraan aniga waa fahmina ilaa hadda sababtoo waxaa mar walba muhiim ah waxay tahay inaad adiga nafsadaada ka taxadirto waxaad adiga samaysanaysin ha kugu koobnaadaan xataa haddii xumaan aad ku dhex jirtay social media banaanka ha lagu keenin ee wax adiga nafsad ahaantaada kugu kooban ha noqoto walaal waxaa mar walba khaali ahna waxay tahay inaad waxyaabaha adiga aad samaynaysa aad ka qoomamaysa mise aad ka shalaydo mise xumaanta ay leeyihiin inaad ka hortagto ma ahan inaad mar walba isku sii horseedo oo maalin ka dambe hami aad usii yeelato xumaantaad adiga aad damacsan tahay walaal waxaan ku dhihi lahaa bilfadlan xumaantaada way badatay adduunkan waad ujeedaa meesha uu sii maraayo bilfadlan waxyaabaha aad samaynaysid inaga dhaaf waa naga codsiyo dhibaataha nagu keenin adduunkan waa la wada saaranya gaali muslim wada saaran gaaladii maanta yuhuud ama gaalada kirishtaanka xataa ma sameyn waxyaabahaad ku dhaqmaysiin wallahi bilahi waa midaan loo dulqaadan kara mas mid ma aragtay fawaaxisha ama foolxumo dhabta ah ma aragtay ugu xun sababtoo ah waxaad samaynaysa ha ahaad wax khayr badan social median markaad soo horgasho ma ahan mid adiga kaliya kugu eg ee waa mid dadka caalamka kuwada nool oo dhan uu gaara videogaad samayso ama sawirkaad iska soo qaato marka bilfadlan waxaad samaynaysa wax adiga kugu kooban ilaahayna kugu ogyaha ku aato laakiin anaga markhaati hanaga dhiganin misna anaga maaragtay xumaanta hanuu soo jeedin oo xumaanta anaga hanuu hogaamin bilfadlan waxaa mar walba kuleeyahay waxay tahay walaal waan kaa codsanaynaa bilfadlan xumaantaada ha kugu koobnaato misna mid adiga kugu kooban ha ahaato anaga dhibaato hanuu keeni anaga adduunka rajaanka leenahay aakhirana rajo weyn aan ka leenahay waxaa adduunka rajo kaga leenahay waxay tahay inaan aakhira biri waddo fiican aan ku tagno aan jannada aan galno ma ahan inaan maaragtay adduunka hadda si adiga iskaga dayacdan burbuleemka ama foolxumada adiga ku dhex jirtay inaan anaga raali iskaga nahay ma ahan taas anaga waxaan diyaar u nahay waxay tahay adduunkan wax nololkeen inaan ka shaqaysano inaan foolxumo dadka macnaha la wadaagna diyaar uma nihi inaan dadka xumaata la wadaagna diyaar muhi bilfadlan videogan adigoo kugu socdaa walaal kolley magacaagana ma garanaayo waxaan mar walba ku dhihi lahaa waxay tahay inaad isbedesho isku day inaad xumaantaada maaragtay aad ka tanaasusho oo dib dambe isku soo celiso weli jaanis aad haysataa oo caafimaadaad qabtaa ilaahaygaga usoo noqo xumaanta hore usoo samaysana ka soo noqo ee wanaagga ku bedelo xumaantaad samaysatay bilboqol jibaar wanaag ku bedelan kartaa ilaahayna wuxuu jecel yahay waxay tahay addoonkiisii ku caasiya hadduu mar labaad kusoo noqdo dembigiisa oo inuu ka cafiyo ilaahay ka dalbad ilaahay uu ka cafinaya laakiin haddaad isdayacdo oo adiga xumaanta diyaar u noqoto wallahi bilah waxaan aaminsanaha waxay tahay inaad weligaa xumaanta ku jiraysid ehelna waad leedahay qaraaban waad leedahay kolley waxaan dhihi lahaa ayagani ninkan wuxuu maanta wallahi mudan yahay waxay tahay in qoorta laga gooyo waa marka runta laga hadlo sababtoo ah waxay tahay xumaanta oo mar walba ma aragtay qofka islaamka ah oo u hogaaminaya dhibaato ah khaasatan idinka familka ka dhashay markaa ka hadlo waa foolxuma ninka wallahi bilaa wuxuu waajib ku yahay waxay tahay in qoorta laga gooyo sababtoo ah xumaanta oo maanta adduunka noo gelinaya waxyaaba loo adkeysan karin ahayn xumaanta oo mar walba noo hogaaminaya anaga dhibaato weyn nagu ah anaga diinteena islaamka waa diin nadiif ah waa diin aan xumaanta raali iskaaga ahayn qofka walaalkaa hadduu xumaanta ku jirana waa si toosa loogu sheega lagama qariyo sababta hadda waxaad arkaysaa soomaalida waxay dhibaato keenana waxay tahay marka qof walaalkooda dhibaato ku jira mas xumaanto ku jira qof kaloo ku taageeraad arkaysaa ku dhaa aniga macnaha waa walaalkeyga mas waa waalidkeyga war adiga walaalkaa xumaan ha ku taageerin sababtoo ilaahay raali kama inaad xumaan isku taageertaan kan kula dhasha ama kan kaa fog ha ahaada hadduu xumaan ku jiro sida cad oo sheeg ilaahay raali kaa noqonaya adigoo wixii xaq aad u sheegaysid ilaahay waa dooru ha ku naco maxaa dhahdaa ha ka xanaaq haduura waxba kaaga magalin laakiin waxaa mar muhiim ah waxay tahay inaad xaqa marnaba qarinin sababtoo xaq ilaahay ma qarinin bilfadlan waxaan idinka codsanaa soomaaliya meel walba joogtaan daafaca caalamka videogan inay ii sheer garaysaan khaasatan waxaa la hadlaya asxaabta ku xiran janalka cumarka youtube insha allah intaanan ku xirnayn bilfadlan hadduu videogan kusoo gaaro fadlan waxaan kaa codsanaya inaad subscribe-ka ii saarto aad like iyo commentiga iigu dhiirigeliso videogaygana aad sheer dhahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu